way kulanti wanaagsan saaxiib yeel soo dhawaada waxaan rabaa in idin la wadaago xogta iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka culus ee maalintii labaad galay kana socda dawladda deegaanka Soomaalida iyo qasaaraha tirada faraha badan ee laga soo warinaya halkaasi in yar waxaan rabaa inaad ila daawatid muuqaalkan kadibna aan aadno xaqiiqda saxda ee ka jirta dawladda deegaanka Soomaalida iyo cidda hogaaminaysa dagaalka waqtigan halkaasi ka aloosan iyadoo markaasi si weyn looga dhaliilayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Cagjar ee halkaasina dhibaato weyn ama xasuuq weyn ka geystay xogtaas ayaa rabaa in halka kugu la wadaago soo dhaw marka hore daawade hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro bogeena fadlan soo follow garee ka mid noqo saaxiibadeena maalinlaha nagu xiran si aynan ku seegin wararkeena iyo macluumaadkeena aan bartan ku baahino like garee muuqaalka share garee si saaxiibo far badan ay warkaan xaaladda adag ee ka jirta deegaanada Soomaalida gaar ahaan markaasi dawladda deegaanka Soomaalida ila daaw muuqaalkan kadibna waxaan aadi doonaa xaqiiqda saxda ee halkaasi ka jirta waxaa la soo gaarsiiyay gudaha magaalada Beligubadle dhaawac tiraahan ilaa 6 dhaawac hase yeeshee dhaawacu soo socda dhimasho dhaawac far badan waa jira waad arkaysan dhakhtarka Beligubadle sidoo ceeriyoonka uu maanta u yahay daawadayaal waxay dula socodsiinayaan ummadaas magaalada dacwalay ugu xasuuqay oo geystay dilkaasi si bareer ah dawladda deegaanka oo madaxweynaha ka yahay Mustafa Cagjar way sidaad ku daawateen muuqaalka run ahaantii waa muuqaal dhibaato iyo dareen weyn leh kuna aadan xasuuqa ba'an loo geystay Soomaalida iyadoona markaasi isbitaal ku yaala magaalada ee markaasi halkaasi si weyn looga dabiibayo waa Beligubadle meel la yiraahdo kana tirsan xadka dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba sidoo kale dhanka Soomaali galbeed ay wadaagaan haddaba dadka halkaasi ku dagaalamay waa dad Soomaaliyeed dadka halkaasi sida weyn isku laynaya waa dad Soomaaliyeed sida ay wararku ay sheegayaanna madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo adeegsanaya ciidamada New Police ayaana xasuuq ba'an u geystay dadkaasi kuna noolaa deegaankaasi ee Beligubadle lagu magacaabo qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac culus ayaa jira halkaasi maalmihii ugu dambeeyayna si weyn ayay halkaasi isku dagaalayeen waa dagaal maleeshiya beeleed ku aadan iyada oo markaasi loo adeegsanaya ciidamadii dawladda gaar ahaan ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida New Police loo yaqaanay taasi oo keentay waqtigan la joogay inay dhacdo masiibadan halkan kaga muuqato sidaad ka arki kartaan muuqaalada halkan waa dhammaan meedadka iyo waliba sidoo kale dadka halkaasi ku waxyeeloobay ama qasaaraha culus ee ka soo gaartay marka la leeyahay Soomaalidu ma ahan dad goob ah waa sidan oo kale ma aysan dilin gaal ma aysan dilin dad kale laakiin waxa ay leynayaan waa wiil Soomaaliyeed kan wax dilayaan waa wiil Soomaaliyeed waana dhibaatada ugu weyn ee maanta haysata Soomaalida iyo inteeda kaleba markaan arkay muuqaalkan kadib ama barta WhatsApp-ka la igu soo diray run ahaantii aad ayaa ugu naxay markaan arkay intaan meelada halkaan daadsan aad arkaydaan waa dhalinyaro Soomaaliyeed laha rajo iyo mustaqbal iyo ididiile iyadoona markaasi si micno darro ah loogu laayay deegaanadaasi dawladda deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeeyay xiisad colaad oo kacsanaan weyn ah ayaa ka jirtay iyadoona markaasi saameyn weyn ku yeelatay dagaalka halkaasi ka socda waqtigan la joogayna caqabadi weyn ay ku tahay in markaasi ay si weyn ugu dhibaatoodaan dadka halkaasi ku nool ama caqabada culus ee ugu kulmayda iyadoo markaasi ay jiraan warar kale ka soo baxaya kuna aadan in kicinta colaadeed halkaasi ka socoto ay ku aadan tahay mid qabiileed ama beeleed taasi oo dhibaato weyn ama nolosha dadka halkaasi galaafatay waxay warar kale ka soo kordha halkan idinku kula wadaagi doona si share garee muuqaalka meel dheer la gaarsi aragtidiinana qaybta hoose comment-ka nagu wadaagi karta dhammaan mareegaana kala duwan ayaana ku baahin doona muuqaalka si like garee meel dheer gaarsi mahadsanidin naguna soo biira